Khilaaf Xooggan oo Ruxay Xukuumadda Israa'iil. Arrinta Maxaabiista oo Xafiiska Netanyahu Waji Cusub Gelisay. Dowladda Israa'iil ayaa hadda la daalaa-dhacaysa khilaaf gudaha oo xooggan kaasoo u dhexeeya taliyaha guud ee ciidanka Israa'iil Eyal Zamir iyo wasiirka amniga Israel Katz. Khilaafkan ayaa qarxay kadib markii Katz uu si furan uga hadlay baaritaan militari oo la xiriira dagaalka Gaza, arrintaas oo ka araysiisay Zamir. Maxaa sababay khilaafkan? Wasiirka amniga Israel Katz ayaa shaaca ka qaaday warar la xiriira baaritaan ciidan taasoo uu taliyaha guud Eyal Zamir u arkay mid aan waafaqsanayn hab-maamuuska militariga. Labada mas-uul ayaa markii dambe yeeshay shir gaar ah, waxayna isla garteen in amniga Israa'iil iyo xoreynta maxaabiista Xamaas ay mudnaan leeyihiin. Cadaadiska qoysaska maxaabiista xukuumadda Netanyahu. Qoysaska maxaabiista ay hayaan Xamaas ayaa dareen caro leh muujiyey, iyagoo Netanyahu ku eedeeyey inuu siyaasadaynta arrintan ka doorbiday badbaadada ehelkooda. Madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa sheegay in arrinta maxaabiista aysan door muhiim ah ka haynin go'aamada dowladda, taasoo sii hurisay khilaafka jira. Warar hoose ayaa sheegaya in ciidamada Israa'iil ay weli qorsheynayaan duqeymo iyo howlgallo militari oo lagu cadaadinayo Xamaas. Maxaa la filayaa? Dowladda Mareykanka ayaa la sheegay inay hadda ku jirto wadahadallo cusub oo ku saabsan istiraatiijiyadda xalinta arrinta maxaabiista, balse faahfaahin badan lama hayo. Khilaafka u dhexeeya xukuumadda Netanyahu ayaa sii kordhiyey walaaca shacabka iyo ehelada maxaabiista, iyagoo ka baqaya in ayan helin waxaal ah. Mustaqbalka siyaasadeed ee Netanyahu ayaa hadda wajahaya cadaadis xooggan, iyadoo dad badan ay su'aal gelinayaan sida uu la tacaali doono xaaladan cakiran. Maxaad ka aaminsan tahay arrintan? Fikirkaaga hoos noogu reeb.